difaaca qarannimadeena iyo midnimadeena iyo jiritaankeena ayaynu u taaganahay maanta waa maalin weyn oo ku muujinayno dareenkeena muxuu ahaayay ku aadan difaaca dalkeena soo saas ma ahayna difaaca dalkeena waa mahadsantihiin runtii muxuu ahaayay Soomaaliya hadalka badan ma murtida laga raaca Soomaalidu taariikhdii ay soo jirtay saddex shay bay ilaashanaysay weligeed oo intii aanu geeyeen qurunta iyo qarniyada iyo kumanaanka sano ku soo noolayn saddex arrimood bay ka sinaayeen inay ilaashadaan midda koowaad waxa weeye inay ilaashadaan dalkooga dhulkooga inay ilaashadaan oo xeebaha ballaaran ee adduunka iskaga kala gooshi jiray inaynu difaacno moogtay hor joogsanno quwadihii ama muxuu ahaayay Asia ama Yurub aynu hor istaagnay oo ku ilaashanay dhulkeena waxaynu ilaashanay muxuu ahaa isirkeena qowmiyadda Soomaaliyeed baynu ilaashanay oo aynu ku nahay Soomaalinimada oo luqadaas iyo dhaqanka iyo isirka wadaaga ummadda Soomaaliyeed isku eelkiyo muxuu ahaa qaraabada tahay taana waynu ilaashanay waxa kale oo ilaalinay diinteena islaamka ayaynu ilaalinay in diimo kale ay soo dhex galaan maanta Muuse Biixi oo muxuu ahaa waxaad moodaa xilli dambe ku jira waayeelnimo saddexdaaba duulaan buu ku yahay saddexdaaba duulaan culus buu ku yahay inuu dhulkii bixiyo oo yiraahdo hadiyad baan u bixinaya waa waxaan taariikhda soo marin weey inuu muxuu ahaa dejiyo dadka u leeshiyay dad kaniisad ka socda ay yihiin oo Israa'iil yiraadaan kaniisad baan muxuu ahaa markii ugu horeysay taariikhda aan muxuu ahaa ka sameeynayna oo taana ogolaado waa khatarta kale ee socota weey inuu muxuu ahaayay qowmiyadii Soomaaliyeed uu yiraahdo muxuu ahaa waxa wadaagnaa dad muxuu ahaayay Oromo ayaa moogtay waxa la yiri moogtay xaqee moogtay nin baa wuxuu yiri Oromada xaqee asalkeedu wuxuu Irama daat al-imaad man maqal dad weligood quruna ku nool caalamkan miya ayuu leeyahay muxuu asalkeedii waa galaa oo halkaas muxuu ahaayay Soomaalinimadii aan kaga baxaynaa saddexdaas arrimoodba waa saddex duulaan ku ah taariikhda soo jireenka ee ummadda Soomaaliyeed ee difaacday qarannimadooda diintooda dalkooda iyo muxuu ahaayay asalkooda iyo isirkooda marka waxaan leeyahay anigoo maanta ku hadlaya runtii uuna bogaadinaya intii isku soo dubriday muxuu ahaayay shirkan iyo kulankan runtii aadka u muhiimka ah dhalinyaradii ka soo shaqeysay iyo hawlwadeennadii ka soo shaqeeyay anigoo aad iyo aad u bogaadinaya waxaan leeyahay waa maalin weyn weey oo taariikhi weey waa fariin aan u dirayna dadkeenii muxuu ahaa ku nool gobolka Awdal oo halkii ilbaxnimada iyo islaamku ka soo galay weey meesha duulimaadka lagu yahay muxuu ka soo galay weey taas inaynu maanta difaacno marka isu taagnaay waa mid muxuu ahaa runtii muhiim inoo ah waxaan leeyahay taariikhda waxba laga bartaa wuxuu yiri ninkii gabayaaga ahaa taariikhdu waa u dheeh naflaha dheegashiya maane waxa loo dhitaystay waa yaanad dhaadhicin dabihii la eediyo kuwii dheefta lagu gaaray waa si aan dhaleecadii daraad maantana u dhicin inuu muxuu ahaa taariikhdii ay awooyaasheen ay soo difaaceen ay gumaysiga haraga ugu qoreen inaan maanta iska bedelno waxay garteen aan garan weynaay waa runtii waa arrin aad iyo aad u muhiim weey marba waxaan markaasi muxuu ahaa idin أنا أنت في أفيرني وحن قار عروس الحين قاشان برا عن الحين وحن قبنمي الشرف حرني مقار أو الحين سيدي قبل أقوله جيان كيدي ويمي قدوم بالله بحشا ولي بقلبي صوته ذلك مثال إسكاب حياي أنا وحياها الأيام كلوية ركبي كان أحسب الله تهاي بدي عدل قوسن كرو لجين كان سيل لها نكي ربي قدني كرو dad baaba geeyaro qababa wax la iska iibsan karo muxuu ahaa la heli karo haddaan kuga ku kordhaa gabow mooye ku barin muxuu ahaa garaad iyo waaye arag ilaa wax ma dhaatid geed buu muxuu gaarin ee maruuyo marka waxaan la yaabana anigoo la hadlaya Muuse Biixi la hadlay inta ay dhageysi anigoo la hadlaya ninka gacal iyo xigaal ninka gogashii ka duday shirkii Jabuuti ka cararay ninka gudnimada horkacay gumaysi ninka u wacay garaadkiisii dafiray ninka gaalada madow ninka gaalamadow ku yiri dhulkayga haddaan u gado dhamaankayga iyo badaba haddaan gurigay ku daro aqoonsi ma goyn karaan balkawar wuxuu rabaa inuu dalkii oo dhan u xaraasho aqoonsi ma helayaa buu leeyahay waxyaabaha la yaabka taariikhda ummadda Soomaaliyeed soo marin aqoonsi ma goyn karaan buu leeyahay marka wuxuu yiri aqoonsi ma goyn karaa
bal eeg maan kaa guracan ninkaa garashadiisu tiri abiyow ani igaro inaan bani aadam galo bal yaa mogtay muxuu bani aadam waa u yahay wuxuu ku leeyahay aqoonsi baan kaaga baahan taasuu rabaa inuu dhulkii muxuu ahaay uu ku gado dadnimo inaan gaari karo war dad baa tahay xor baa tahay gobonnimaad leedahay ummadda Soomaaliyeed wad ka mid tahay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed baa tahay muxuu ahaay waddanka xorta ah muxuu ahaay Soomaalinimada weligii ku soo ilaaliyay baa tahay wuxuu kale inaan bani aadam gaari karo marka bal fiiri maanka guracan ninka gunnimo isu qiray ninka gobonnimo ka diday Soomaalay ma ila garateen ninka gobonnimo ka diday ninka gunnimada isu qiray horta ma ila garateen dhamaantiin gartaa yaa qaadi kara godobtaa yaa mayri kara Soomaaliya iga guddoon idinka daayay taa maxkamadan ka noqotaa waa maasantihiin taladaydu waxay tahay dadka awdal jooga runtii muxuu ahaay sida urursan sida dareen kale u difaacaya dalkooga midnimo iyo wadajir bay ku difaaci karaan isku duubni bay ku difaaci karaan yaan laydin dhexgelin yaan muxuu ahaa been laydin sheegin yaan muxuu ahaay laydinka leexinin hadafka asaasiga ah inaad muxuu ahaay maamulkiina samaysataan mustaqbalkiina aad hanataan aayihiina ka tashataan dalkiina aad difaacdaan ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda runtii waxaan ugu hambalyeeynaa madaxda qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo dadaalkan hagar la'aanta uu galay inuu ilaaliyo jiritaanka iyo midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed maanta meel ciriiriga gelisay wuxuu Abiy iyo damaciisii gelisay waa arrin runtii hambalye iyo bogaadin u baahan waxaan bogaadinayaa xukuumadda oo runtii qaraar xoog la qaadatay golayaasha qaranka oo isu taagay oo sharci ka dhigay in arrintaasi aan muxuu ahaa sharci daro tahay waxaan bogaadinayaa ummadii u soo wada baxday bannaanka u taagnayd muxuu ahaa ilaa Luhaya iyo Xariirad iyo muxuu ahaa Boorama iyo muxuu ahaa meel kasta iyo Burco iyo Muqdisho iyo muxuu ahaa dibadahaba muxuu ahaa diasporahaba ummadii kacday dareenkeedu nool yahay damiirkoodu qoyan yahay difaacaya dalkooga waa maasantiin wassalaamu calaykum